wafdigan xilli hore oo saaka ah ayay ka baxeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana ay gaareen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose si ay u kuurgalaan xaaladda deegaanka iyo baahiyaha ka jira oo ay ka mid tahay dhismaha buundada dhexmarta bartamaha magaaladaasi. waxa hogaaminayay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya waxaana qayb ka ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliya, wasiir ku-xigeenka caafimaadka, wasiir dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo mas'uuliyiin kale. wafdiga oo ugu horreyn kulan xog waraysi ah la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga ee gacanta ku haya deegaanka waxay kadib ay kormeereen buundada Bariire oo al-shabaab ay burburiyeen sanadkii 2017 si ay u cunaqabateeyaan dadka deegaanka. waxaana burburka buundada qiimeeyay injineer la socday wafdiga. taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage ayaa wafdiga ku soo dhaweeyay Bariire. waqtigan wixii ka horeeyay anaga ay saldhig noo ahayd laakiin waxaan rajaynaa wixii hadda ka dambeeyay inay golaha wasiirada ay saldhig u noqon doonto annagana saldhigeen kale aan hore ka raadsan doono inta naga sii horeysa aan ka sii raadsan doono ilaahay idankiis waxaan rajaynayaa booqashadaanu inay sababi doonto in muxuu ahaa ii sheegay waxyaabaha yar yarka meesha ka jira ay ugu horeyso bridge-kan ugu horeeyo la samay doono taasina ay soo celi doonto noloshii bulshada ee deegaanka hadda aan ku sugannahay runtii. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Najax waxa uu sheegay in dhismaha buundada Bariire ay muhiim u tahay nolosha dadka deegaanka. waa nolosha dadka deegaankan ee ku nool ee deegaankan Bariire oo ah dhul wax soo saar ah waxaana burburiyay oo bartilmaameedsaday kooxahan nabadiidka nolosha dadka inay mugdi baaba geliyaan ma wax kale aanan u joogin. annaga haddaan nahay maamulka gobolka iyo dawladda qaybaheeda kala duwan heer federaal heer state iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxaan u taaganahay inaan nolosha dadka dib u soo celino buundadaana dib u dhisno hadii alla wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Isaaq Maxamed Maxamuud oo wafdiga qayb ka ahaa waxa uu tilmaamay in wasaaraddu ay ka shaqeynayso sidii Bariire lagu soo celin lahaa adeegyadii muhiimka u ahaa nolosha dadka deegaanka. wasaaradii dhanaan isugu keenayna wasaarad kasta hawsheeda ka gudun doonta meeshan wasaaradii waxbarashada waxay sameyn doontaa iskuulada dhisaysa wasaaradii caafimaadka waxay dhisi doontaa isbitaalada dhisi doontaa annagana waa isku xirkii hawsha ka shaqeynayna maamulada loo dhisaa si wanaagsan maamulada dadkii ay soo doorteen ay raali ka yihiin meeshii ka howlgali doonaan waxaan isla kaashan doonaa maamul goboleedka iyo aniga isla kaashan doonno wax wanaagsan ayaa loo qaban doonaa dadka insha Allah ilaahay raali. wasiir ku-xigeenka caafimaadka Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi waxa uu dadka Bariire ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidanka ayna wasaaraddu diyaar u tahay in adeegyadii caafimaadka ay gaarsiiso deegaankaasi. raggan dhiigooda halkan ku bixinaya la shaqeeyo dad waqtigooda gabaabsi oo dhamaaday waqtiyaan lagu dhuminin beerihiina ilaahay hadduu yiraahdana waan aragnaa waqtigii waxaa la joogaa beerashada ilaahay hadduu yiraahdo nabad idinkoo ku beertaan rajaynayna anaga ka wasaarad ahaan markaan u soo laaban wasaaradda caafimaadka diyaar ayay u tahay wixii adeegyo oo maxaan iraahdaa dadka deegaanka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ay u qabanaysay inay u soo celiso deegaanka inay idin garab istaagto ilaahay hadduu yiraahdo. wasiir dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdullaahi Xaamud waxa uu sheegay in maadaama lagu guda jiro toddobaadka xurriyadda ay ku faraxsan yihiin in waqti ay la qaataan ciidanka xoogga dalka ee xoreeyay deegaanka Bariire dawladuna ay garab taagan tahay dadka deegaanka. saraakiisheena iyo askarteena xoogga dalka Soomaaliyeed oo suurtagelay in maanta taagannahay buundada Bariire aan kor taagannahay anagoo aan dareemaynin wax cabsi ah. taas waxaa mahad iska leh ciidamada geesiinta Soomaaliyeed اسبوعنا لو دبردغاي اسبوعي xurriyada Soomaaliya waxaan rabnaa inaan farxadda ay Soomaaliya maanta ay ku ciideyso magaalooyinka oo weyn loogu ciidayo inay dadka reer Bariire iyo dadka naftooda aan dareensino ayagana aan la qaybsano farxad. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe oo hogaaminayay wafdigii tagay deegaanka Bariire waxa uu sheegay in ciidanka dawladdu ay sii wadayaan xoreynta deegaanada ay haraadiga ku yihiin maleeshiyada al-shabaab iyo ka shaqeynta xasilinta deegaanada la qabtay. waqtiga yar oo haray in aan ka xoreyno cadawga ummadda Soomaaliyeed runtii ummadda Soomaaliyeed inuu dhibaateeyo go'aansaday uusan kala baxsanaynin kan dawladdu u shaqeeyay iyo midka shacabka ah. taas waxaa daliil idan ah reer Bariire waxay ahaayeen dad masaakiina beeraley ah oo maanta beerahooda ay jooga dhibaatadii u geysteen maanta waa muuqataa insha Allah ta'ala sida dawladda ay sabiid iyo caanoole ee shacabkeeda ula dhaqantay ay uga qayb qaadatay in dib u dhis loo sameeyo in nalal loo geliyo in noloshii lagu soo celiyo si la mid ah meel kasto ay dawladda tagto. Cabdishakuur Ali Ahmed warbaahinta qaranka Bariire Shabeellaha Hoose.